kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan ku soo dhawaada warkii telefishinka qaranka Somaliland oo idinka imanaya xarunta TV-ga ee magaalada Hargeysa anigoo ah Munir Axmed Igaal ayaa idin socodsiinaya qodobada idinku hayna waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa xariga ka jaray mashaariic laga hirgeliyay miiska saraakiisha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna xariga ka jaray mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyay degmada Sabawanaag ee gobolka Maroodijeex xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo mas'uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiye oo ka qayb galay shir dhaqan oo lagu soo gabagabeeyay degmada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar tastaawalayaal waa qaar kamid ah qodobada wararkeed ku hayo qodobada ay qodobo kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa xariga ka jaray mashaariic laga hirgeliyay miiska saraakiisha sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kormeer ku tagay xarunta taliska guud ee ku taala magaalada Hargeysa waxaana warbixino nooga diyaariyay wariyahayaga Axmed Saki Daahir Xasan kormeerkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaayo uu ku tagay taliska guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo miiska saraakiisha ayaa ujeedadiisu ay ahayd sidii uu dhiirigelin lahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland una ogaan lahaa xaaladoodu sida ay tahay maadaama ay yihiin lafdhabartii dalkani lahaa ee ka difaaci lahaa cadow kasta oo ku soo duula qaranka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu soo gaaray taliska guud ee ciidamada qaranka waxa uu salaam sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qaranka ee Soomaaliland waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhawaanaya taliska guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhaw intaasi kadib waxa uu madaxweynuhu xariga ka jaray mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyay miiska saraakiisha kaasoo ay kamid ahaayeen wadooyin dhaxmara miiska saraakiisha gudihiisa dhismayaal loogu tala galay in wax lagu baro saraakiisha kala duwan si kor loogu qaado aqoonta saraakiisha sidoo kale waxa uu madaxweynuhu xariga ka jaray garoon casri ah oo loo dhisay ciidanka gaar ahaan saraakiisha looguna tala galay in ay ku ciyaaraan ugu yaraan 4 ciyaarood oo kala duwan waqtiga nasasho si looga ilaaliyo saraakiisha inay isticmaalaan balwadaha kala duwan ee qaadku kamid yahay iyo mashaariic kala duwan oo kor loogu qaadayo xarumaha ciidamada furitaanka iyo kormeerka kadib waxa uu madaxweynaha Soomaaliland oo warbixino kala duwan ka dhageysanayay isla markaana uu sharaxayay mashaariicaasi kala duwan taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland Ismaaciil Shaqale iyo wasiirka gaashaandhigga kuwaasoo ku dheeraaday dadaalka iyo horumarka ciidanka qaranka Soomaaliland ku talaabsaday kormeerkaasi kadib waxa uu madaxweynuhu ka qayb galay munaasabad kooban oo lagu qabtay miiska saraakiisha gudihiisa waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland Sareeyagaas Ismaaciil Shaqale mudane madaxweyne annaga oo dhinacayaga kor uga qaadaynaa tiigsanaynana halganka
iyo dadaalka aada ugu jirto dhismaha qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaa noo qabsoomay 2015 howlo fara badan madaxweyne waddada maanta aad ka furtay halkan miiska saraakiisha dherarkeegu mitirka marka loo qaato waa 700 oo mitir way laablaabmaysaa guryay horumaraysaa waxaa kale oo isagana mudan inaan sheego garoonka cayaaraha ee ugu qurux badan jamhuuriyadda somalilan oo ka dhisan miiska saraakiisha kaasoo koobsada cayaaraha kala duwan ee ay ka mid tahay kubadda kolayga kubadda laliska long tenniska dheer kubadda footballka iyo kuwo kale mudane axmed xaaji cali cadami wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey horumarka ay ku tallaabsadeen ciidanku wax faa'iido weyn laba cadaaday waxaynu ku ogeyn xadaafiirta dhul kale inay maraan milatarigu waxaynu ku noqon inaanay quruxdaba aqoonin waxaynu ku noqon inaanay simirkan u baran ay ku sibiibixanayaan waxaase maanta muuqatay inay shuqulladii kororsadeen markay soo dhammaystireen difaacii qaranka waa bani aadam nasashay u baahan yihiin nicmooyinka adduunka inay qaybtooda ka qaataan bay u baahan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed silaanyo oo ugu dambayntii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay farxad weyn u tahay inuu soo kormeero taliska guud ee ciidanka qaranka iyo miiska saraakiisha farxad weyn bay ii tahay inaan maanta miiska saraakiisha halkan imaadaan furo qiimo iyo qaadaa weyn leh saraakiishu waxaanu ku faano ciidanka iyo waxaanu ku faano qaranka ku faano oo waxa dalka iyo dadkayga daafaca oo waxaanu aad iyo aad aan anaguna ugu faano oo qiimo weyn iyo qaawo weyn noo leh farxad weyn doonta inaanu maanta ka soo qayb galno xafladda tan insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in halka aynu hore uga sii marro oo hore uga sii talaabsano ciidankeenuna halka ay meel ka wanaagsan hore ugu sii talaabsano ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa maaha markii ugu horeysay ee madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed silaanyo uu booqdo taliska guud ee ciidanka qaranka miiska saraakiisha iyo jiidaha hore ee ciidamada qaranka somalilan taasina waxay ka turjumaysaa sida madaxweynaha somalilan uu mar kasta uga warhayo ciidamada qalabka sida ee somalilan waxaanu noqonayaa mudane axmed silaanyo madaxweynihii ugu horeeyey ee si rasmiya ugu xidha ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee somalilan darajooyinka taasoo kor u qaaday haybadda ay ciidamada somalilan ay leeyihiin axmed saki daahir xasan iyo cabdilaahi cali suudi telefishanka qaranka somalilan miiska saraakiisha ee ciidamada qaranka somalilan ee hargeysa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somalilan doctor sacad cali shire oo dalka dibaddiisa ku maqnaa ayaa ku soo laabtay waddanka isagoo ka warbixiyey kulamo uu la yeeshay madax ka mid ah waddanka boqortooyada ingiriiska wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan doctor sacad cali shire oo muddooyinkii ugu dambeeyey socdaal shaqo ku marayay qaar ka mid a wadamada yurub ayaa kulan la yeeshay intii uu joogay dalka ingiriiska wasiirka arrimaha dibadda dowladda ingiriiska wasiirku sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu kulamo gaara la yeeshay jaaliyadda somalilan ee ku nool dalka britain wuxuuna ka warramay xaaladda guud ee waddanka ku sugan yahay iyo sida loogu baahan yahay inay u midoobaan ictiraaf raadinta somalilan saaka waxaan ka soo laabtay safar aan ugu kicitimay dalka ingiriiska oo aan ku maqnaa 2 toddobaad intii aan joogay waddanka ingiriiska waxaan la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee qaabilsan Afrika James Tedridge waxaan kaloo la kulannay jaaliyadda oo xubno badan kala kulannay shirna la yeelanay waxaan kaloo la kulmay dad daneynaya waddanka maalgashadaan waxaan kaloo la kulannay dad kaloo hawlo badan naga dhaxeeya shaqo waxaan kaloo la kulannay infaad markii ugu dambeysay shalayto waxaan la kulannay golaha deegaanka ee xaafadda Tower Hamlet oo motion iyagoo gudbiyey amba abruuf gareeyey aqoonsiga Somaliland saan ugu mahad celino markaa safarkaas runtii waxaa safar wanaagsan oo si fiican ugu soo dhamaaday geesta kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa tilmaamay cilaaqaadka soo jireenka ka dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo Somaliland sidoo kale wuxuu faahfaahin ka bixiyay fiisayaasha Itoobiya ee laga bixiyo magaalada Hargeysa in dadka waa aad iyo aad baan runtii uga xumahay waana nasiib darro in dadka shacabkeenu ay dhibaato badan ay kala kulmaan arrinka fiisada waxa lagu yiri
waa mashkilad farsamo insha Allah waxaan rajaynayaa arrinkaas farsamo mashkiladda keenay in la xalilo sawir saabadan waan ka howlgeliyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliya Cali Maxamed Waran Cadde ayaa xariiq ka jaray mashaariic laga hirgeliyay degmada Samawanaag ee gobolka Maroodijeex munaasabad loo sameeyay mashaariic dhismayaal ah oo ururka Tabantaabo uu ka hirgeliyay deegaano kamid ah degmada Samawanaag oo dhaqaalaha ay soo mariyeen qurbajooga deegaankaasi Samawanaag ayaa waxa ka qayb galay oo ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cadde kadib markii uu xariiq ka jaray qaar kamid ah mashaariicdaasi oo ay kamid ahaayeen dhisme dayr ah oo loo sameeyay dugsi boodhan ah oo ku yaala deegaanka qoton oo munaasabadaasi lagu qabtay mudane Cali Maxamed Waran Cadde waxa uu ka waramay sida bulshada xoolo dhaqatadu ay u fahmeen in caruurtooda ay keenaan dugsiyada waxbarashada arrintaasina ay tahay mid Ilaahay lagu mahadiyo waxaana mudane Cali Maxamed Waran Cadde uu mahad celiyay dadka isku xilqaamay in ay dadkooda mashaariicda caynkan ah ay ku tabantaabiyaan iyo muwaadiniinta gudo iyo dibadba mashaariicdan waxbarashada gacanta ka geystay iyo sidoo kale ururka dhalinyarada Tabantaabo oo wasiirku tilmaamay in tan iyo waqtigii la sameeyay horumar ay ku soo kordhiyeen deegaanka Samawanaag ardayda dugsigaasi boodhanka wax ka baratana waxa uu kula dardaarmay in ay wax bartaan si ay dadkooda iyo dalkoodaba u anfacaan ageesta kale mudane Cali Maxamed Waran Cadde oo dadka deegaankaasi u ballan qaaday wax kasta oo la qabto in xukuumaddu ay garabka la qaban doonto ayaa dadka deegaankaasi ku dhaqan halkaasi uga jeediyay hadallo dhiirigelin ah oo la xiriira horumarka deegaankaasi Suldaan Yuusuf Maxamuud Xiire oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa xubnaha qurbajooga ee gacanta ka geystay mashaariicdan aad ugu mahad celiyay Ilaahayna uga baryay in halkii ay ka soo saareen wax khayr qaba uu geliyo Shukri Cabdi Boorle oo iyana kamid ahayd xubnaha qurbajooga ee ururka Tabantaabo ayaa ka warantay kala duwanaanshaha u dhaxeeya dugsigan boodhanka ee qoton markii hore iyo sida uu haatan yahay dhinaca kalena gudoomiyihii hore Tabantaabo Sakariye Axmed Xasan oo halkaas ka hadlay ayaa qaybgalayaasha munaasabadaas iyo qurbajooga gacanta ka geystay mashaariicda halkaas laga hirgeliyay uga mahad celiyay waxaana uu ka waramay waxqabadka ururka Tabantaabo ee sanadkii galbaday 2015 kaasi oo sheegay in deegaankaasi laga fuliyay mashaariic dhaqaalaha ku baxay uu dhan yahay ilaa $50,000 Mareykanka oo qurbajooga Tabantaabo soo ururiyay gudoomiyaha cusub ee ururka Tabantaabo Xasan Koosar ayaa isaguna bulshada deegaankaasi ku dhaqan ku adkeeyay in mashaariicdaasi loo hirgeliyay ay ilaashadaan isla markaana ka qayb qaataan horumarka deegaankaasi ka socda shirweynihii lixaad ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa iyadoo gabagabadii shirkaasna lagu doortay hoggaanka hagi doona ururkaasi sanadaha soo socda kulankan oo ay ka soo qayb galeen 180 dhakhtar oo ka kala socday gobolada dalka ayaa qorshe hawleedkoodu muddo 2 sano ah soo socday isla markaana marka ay 2 sano dhamaadaan waxa ay dib u doortaan xubno kale oo hogaamiya qorshaha 2 sano ee soo socda munaasabad ballaaran oo loo qabtay xafladaasi ayaa waxa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay xubno kala duwan oo ka tirsan dhakhaatiirta waaweyn ee ka howlgala Soomaaliland waxaana ugu horeey munaasabadaasi iyaguna si isku mid ah uga hadlay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose Dr. Maxamed Xasan Dirin Dr. Xuseen Xoog Dr. Axmed Faarax Buuxane Dr. Cabdi Yaasiin isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ducaale iyo dhakhaatiir kale waxaana dhammaantood ka warameen in uu caafimaadku ahmiyad ballaaran ugu fadhiyo bulshada Cabdirasaaq Yuusuf Cabdilaahi gudoomiyaha loo doortay hoggaanka 2 sano ee soo socda iyo Fatxiya Maxamed Nuur Faahiye oo iyaduna ah gudoomiye ku xigeenka ayaa iyaguna halkaasi ka hadleen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inaad ugu maamustaan inaad ii garataan inaad ku taqbalaysaan waxaan runtii ixtiraamayaa dastuurka waxaan doonayaa dastuurka oo inuu wax walba ka sameeyo waxaan runtii talaabooyin hawlada inoo yaalaa hawlaha inoo yaalaa waxaa kow ah in wada xaajood loo dharo dhaqaatiirteedii karsiina runtii kama maaran karo waynu u baahannahay waxaan aad ugu faraxsanahay horta shirkan shirweynihii lixaad ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliland General Assembly oo maanta ku soo gabagaboobay hotel Malsoor magaalada Hargeysa taasoo la igu doortay gudoomiye ku xigeenka ururka dhakhaatiirta Soomaaliland si fiican buu qabsoomay shirku
dhakhaatiir aad u tiro badan baa ka soo qayb gashay waxaan odhan karaa nambarkii ugu badnaa ee weli ka soo qayb galay tiro ahaan ayay maanta ahayd guud ahaan qaabka loo soo qabanqaabiyay aad buu fiicnaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyihii hore iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore guddidii qabanqaabada ee shirkan sidan u quruxda badan leh soo qabanqaabisay kuna guulaystay inuu shirku si fiican u qabsoomo gabagabadii munaasabadaasina waxaa ka hadlay axmed xaashi oday guddoomiyaha hay-adda mihnadlayaasha caafimaadka waxa weeye maanta laba qof baa la doortay waa cabdirasaaq iyo farxiya iyo boorkii oo liigaha soo kala doonto boorkuna waxaa loo baahay muhiim noqdo laakiin waxaan idin sheegayaa qolada aan nili mustabeedkaasi markii hore way ka maqnayd association waxaana keenay mustabeed la sameeyo gorgortankii faraha badnaa ee halkan ugu kala galay ee isbadu waagkor waxla keenay waa inay mustabeedkaasi soo dhameeyaan ama kula dhaqnaayeen wixii laga gaari waa xamse qurbaani iyo axmed aar telefishinka qaranka somalilan hargeysa wasiirka wasaaradda warshadaha somalilan ayaa safar ku tegey magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer sida uu ku soo warramayo wariye mustafa tiijar oo warkan inoo soo diray wafdi hogaaminayay wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Burco. wafdigan oo intooda badani ka koobnaa mas'uuliyiinta wasaaradda warshadaha Soomaaliland ayay magaalada Burco ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta wasaaraddaasi ee gobolka Togdheer xildhibaano xubno ka socday qaar ka mid ah warshadleyda gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale. isuduwaha wasaaradda warshadaha gobolka Togdheer Faysal Cabdi Xasan xildhibaan Axmed Cabdi Dhimbiil oo ka tirsan golaha deegaanka Burco ayaa wasiirka uga mahad celiyay booqashadiisa. kugu yimaada safar socod oo shaqo gobolka Togdheer ee inta jirtay wasaaradda warshadaha iyo leeyahay soo mareen ay ka horeen laba wasiir oo hore nasiibay u yeelanayeen inay yimaadaan gobolka Togdheer sana si u yeeshay wasiirkayga gudaha soo dhalinyarada Shacab Maxamed Muuse waxaan ka rajaynayaa wada shaqeyn waxaan dardargelin iyo dhiirigelin shaqo waxaan halkan ku soo dhaweynay wasiirka warshadaha Shucayb runtii wasiirka runtii ugu horeeyay ee gobolkan soo booqda intii wasaaraddu jirtay baan u malaynayaa la aasaasay gaarba loo saaray halena wasiir ku soo dhawow gobolka ee caasimadda labaad Burco ama Togdheer waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi fayoow baan kugu soo dhaweynaynaa waana ku mahadnaqaynaa wasiir sidaad howlaha u wada iyo wada shaqaynta wanaagsan ee kaala dhaxaysa anigoo maanta ku hadlaya afkii ururka warshadleyda dalka aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa wada shaqaynta wanaagsan ee nala shaqaysay iyo sida noogu hagar baxdo. wasiirka warshadaha Soomaaliland oo isaguna toos u baaray Hotel City Plaza ee magaalada Burco oo ku degay ayay soo dhaweeyeen mas'uuliyiin tiro badan oo kamid ah wufuud shirweyne kaga qayb gashay saaka magaalada Caynabo oo qaarkood caawa ku soo hoydeen Burco kuwaas oo ay kamid ahaayeen wasiirka macdanta iyo tamarta wasiiru dawlaha madaxtooyada hoggaanka sare ee kulmiye iyo xubno kale waxaana wasiirku telefishinka qaranka xog waran kooban ka siiyay ujeedada socdaalkiisa. sharaf iyo karaamada baad noo soo dhaweyseen waxaan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta ballaaran ee aad noo samayseen magaalada Burco waa hooyadii Soomaaliland. Burco ama gobolka Togdheer waxaan oran karaa waa hooyada warshadaha waddanka oo runtii qayb lixaad ka qaadan karta horumarka waddanka iyo dhaqaalaha kordhinta iyo intaba marka waxaan u soconaa hawl shaqo sidii aanu u eegi lahayn dhulkii wasaaradda warshadaha iyo warshadihii hore warshadaha barefadka loo leeyahay maaragtay shaqeeya magaalada Burco ka hawlgala inaanu dhagax dhigno xafiis cusub oo runtii sanadkan 2016 ka bilaabmay loo dhisi doono wasaaradda warshadaha gobolka Togdheer runtii shafar shaqo oo ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya baanu u soconaa waxaan noqon doontaa mid ka mid xaaladaha aan ugu kurgalayno warshadada waddanka iyo kuwa dawladda intaba waxaan samayn doonaa shuruucdii warshadaha iyo kala xadeynta iyo policy-ga wasaaradda sanadkan insha Allah taala maadaama aanu shuruucdii wasaaradda samaynayno iyo siyaasadii iyo kala xadeyntii iyo wixii oo dhan wayna xoogaal noqonaa dhammaan muxuu ahaa inta ugu muhiimsan gobolada dalka inaan soo booqano sanadkan miisaaniyadda waxa ku jira xafiis gobolka Togdheer magaalada Burco iyo xafiis gobolka Awdala magaalada Boorama sidaa darteed baanu safarka iyagu yahay insha Allah taala ana warshadleyda oo xog wareysan doona marka maadaama Burco tahay hooyadii warshadleyda waddanka oo hogaaminaysa warshadaha ugu qiimaha badan ee waddanka ku yaala inuu ku yahay magaalada Burco gobolka Togdheer
aad iyo aad baad runtii umahadsantihiin. mustafa cismaan magaalo telefishinka qaranka somalilan magaalada burco. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa kormeer ku tegey degmooyinka Salaxley Beligubadle iyo Faraweyne isagoo sidoo kalena soo dhagax dhigay mashaariic kala duwan oo laga fulinayo deegaanadaasi. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Soomaaliland oo helinayaan gudoomiyaha waxbarashada gobolka Maroodijeex iyo xubno kamid ah wasaaradda waxbarashada ayaa safar kormeer ah ku tagay degmada Salaxley halkaas oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay wafdiga uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada Soomaaliland waxaana kormeerkooda koobaad ay ku tageen dugsiga sare ee degmada Salaxley iyagoo warbixino kala duwan ka dhageystay mas'uuliyiinta waxbarashada degmada Salaxley waxaana ay ka warameen mas'uuliyiintaasi baahiyaha kala duwan ee waxbarasho ee ka jira degmada Salaxley. سعادة وزير إنك نروح نقصد وين نقعنا فرن كسودو سلاحلي أو فينا مركي كلو رسيتين تاع وزير جاهد سلاحلي وحكي لنا سودو الحمد لله وزار وحبرشة دقمنا من كورما واحد شري اللي حيلا وعطن دوكسي أو هل كان كي هاي دوكسي سرق واحد شرا أفر بوردن أو بوردن لا يكنتين لا سمايو ديجان كروه رير جورا ساي أرضنا وحنا محوها مركي رير جوريو أيا بوردن لا loo abaabulay ama loo sameeyay runtii bulshada boornadaasi wax badan bay xag reer miyiga waxbarashada tahay ugu leeyihiin marka afarta boornada ma ka jira degmada oo Salaxley kamid tahay balli mataan bahadhamal iyo laaqeyrta cilmiga sidoo kale waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Salaxley iyo gudoomiyaha ururka Gaaroodi ee degmada Salaxley waxaana ay tilmaameen in ay dhiseen dhismo dheer ah oo ay ku soo wareejiyeen dugsiga sare ee degmada Salaxley kaasi oo qayb tahay waxaana ay wasaaradda waxbarashada ay ka codsadeen in ay wax kala qabtaan waxaanu ka marxaati furana in muddo yar oo kooban adigoo jooga durba safar ah u soo baxday wasaaradda waxbarashaduna dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudihiisa oo dhan markaan wareysanay waa wasaaradda kaliya wada joogta dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka xataa kuwa bariga ay dhibaatooyinka badan ka taagan yihiin deerkan aad baan ula tacaalay waxa ka qayb galay dawladda hoose qola ka timi khaliijka iyo dad badan oo muxsiniina ayaa ka qayb galay reer Salaxley oo ku bixiyay intan dadka meeshan degan waa dad sabool oo u baahan hadi jiraale in la kabo anagoo aad iyo aad uga mahad celinay qolada Gaaroodi oo waxbarashada muddo dheer gacanta ku haysay waxaan ku faraxsanahay imaatinkaaga waxaan ku faraxsanahay war sidaad xogta uga qaaday degmada imaatinkaaga u horeeyay gabagabadii munaasabadaasina waxa soo xidhay wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Cabdilaahi Ibrahim Habane waxaana uu uga mahad celiyay soo dhaweynta fiican ee u sameeyeen mas'uuliyiinta degmada Salaxley waxaana uu wasiirku uu tilmaamay in ka wasaaradahan ay ka qayb qaadan doonaan baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada Salaxley iyo sidii loo horumarin lahaa waxbarashada waxa wasiirka halkaasina lagu guddoonsiiyay shahaado sharaf ay ugu talagaleen mas'uuliyiinta degmada Salaxley وانين هذا قناصر نسو دويسين galkeedi يسر نو شرفتين با نبات كان waxaan ku wada soconaa anagu wasaaradii waxbarashada agaasimihi dugsiyada sare agaasimihi kormeerka gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka agaasimihii shaqaalaha raggan aqoon-yahanka ah amba dow ha sameeyaan amba dugsi ha sameeyaan boodhina amba iskuul ha sameeyaan amba cusbitaal ha sameeyaan raggan aqoon-yahanka ee deegaanka u dhashayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana ka sii kordhin doonaan waana mid qof kasta oo aqoon-yahana oo reer Soomaaliland laga sugayo maxaa yeelay bini'aadanku ururka isku tagaa waa dawladnimada ururka ugu weyni ururada kale oo dhan way ka hooseeyaan marka ururka guud ee dawladnimadu haddii amniga guud iyo wixii imkaaniyaad ee guud la xaslado wixii hoose inaan isku tagno oon isku ururno oo aan qabsanno ayaa loo baahan yahay dawladdanu Axmed Maxamed Silaay madaxweyne ka yahayna waxay dhiirigelisay waxqabadka dadka way dhiirigelisay amba waxa ku tarto amba ha ogolaataba way dhiirigelisay marra waahid aad iyo aad bay u dhiirigelisay hadday wada tahay hadday dugsi tahay hadday ceel tahay aad bay u dhiirigelisay waan ku mahadsan yihiin waxaan halkan ka ballan qaadayaa kow marka horeysa dugsiga Boardinka wixii aanu hidin karno ee aanu kordhin karno oo miisaaniyadeeda aan ka jafi karno waanu yar kordhinanaa insha Allah hadii alla ila Boardinka wixii lagu tareeyay laba deyrkana waa la soo qiimeeyno ka hor intii aan wasiirka iyo wafdiga hogaaminayay soo gaarin degmada Salaxley ayaa waxa shil baabuur ku dhacay baabuur kamid ah wafdigaasi la socday wasiirka wasaaradda waxbarashada gaarigaasi oo ay saarnaayeen 3 qof oo ay kamid ahaayeen agaasimaha kormeerka guud ee wasaaradda waxbarashada Xasan Cabdilaahi Roble la taliyaha wasiirka ee horumarinta dugsiyada
jaamac cumar axmed iyo darawalkii waday gaadhigaasi. shilka baabuur ee soo gaadhay mas-uuliyiintaasi ayaa uu geystay dhaawac sahlan. wasiirku waxa uu sidoo kale kormeer ku soo maray gobolka hawd ee degmada Ballegubadle, Balle Cabane, Faraweyne iyo lafta Faraweyne isagoo dhagax dhigay dugsiyo sare oo laga hirgelinayo deegaanadaasi. iyagoo mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlayna waxay yidhaahdeen runtii tuuladani oo ka tirsan degmada Faraweyne waxaan u malaynayaa in duruufaha ugu weynee haystaa ay ka mid tahay iyadoo dadku reer guuraayahay oo ay waxbarashadii ka kala goodo. waan garab taaganahay 24 saacadood baynu garab taaganana waan jeclahay heeliyo waan hadii adduunta iyo hadii maalta iyo hadii magacta iyo hadii maanta hadal taalo waan isku garab taaganaa. qofku markuu wax qabsado ayay xukuumadda wax u qabataa. muddo dheer baanu wixii qabnay in la noo dhiso secretary insha Allah maanta ku guuleysanay waxaana ku guuleystay wasiirka wasaaradda tacliinta sare dhammaanteedba aynu ku wada dadaalno. Suldaan Xasan iyo salaadiinta kale iyo aqoonyahanka gargaarow halkaa xukumi jiray macalina waa lahayd fadhiga laga kaco deegaanka loo kaco caruurta waxa la baro. waa Xamse Qurbaani iyo Faysal Aadan telefishinka qaranka Soomaaliland. iyadoo bilowga diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ku soo foolay waddanka Soomaaliland laga bilaabi doono gobolka Togdheer ayaa komishinka doorashooyinka qaranku waxa ay kula wacyigelin ah ku qabteen magaalada Oodweyne iyagoo dadka ku wacyigeliyay sida ay uga qayb qaadan lahaayeen bilowga diiwaangelintaasi. munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay ololaha wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaasha oo dhawaan ka bilaabmi doonta deegaanada Togdheer iyo Daadmadheedhe ayaa maanta lagu qabtay aqalka shirarka ee dawladda hoose degmada Oodweyne. waxaana munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen ururada Dan iyo SWL ka soo qayb galay xubno ka socday guddida doorashooyinka qaranka, maamulka gobolka ka degmada Cuqaali iyo marti sharaf kale oo tiro badan. diiwaangelintani waxyaabo fara badan bay faa'iido ugu leedahay gobolka Daadmadheedhe oo gobolada qaar ka duwan oo yani tiradiinu waxay wax weyn ka qaban doontaa mustaqbalka kaalinta gobolka ku jiri karayo. waxaanu isu wacyigelinaynaa horta waxa weeye diiwaangelinta bilowgeeda qaabka loo bilaabayo iyo kaadhkan macnihiisa iyo labada kaadh oo dadkii isaga qaldan kaadhka muwaadinka iyo kaadhka codbixiyaha. kaadhka muwaadinku ma aha mid istaagaya, waa mid qofku uu qaadan karo waqtigii uu doono, laakiin kaadhka codbixinta ama codbixii uu qaadanayo muddo yaroo gaaban buu leeyahay. cuqaal xildhibaano iyo waxgarad tiro badan oo halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba soo dhoweeyey ololahan loogu gogol xaadhayo diiwaangelinta codbixiyaasha. inaan nahno waa kaadhkii codaynta doorashada ee qaata waanu ku wacyigelinay iminkana diyaar baanu nahay. komishinka qaranka weydiinaya 7 cisho markay dhammaadaan iyo wax la diiwaangelinaya 2 goobood soo soo arimaayaan 2 goobood mid xadka nooga dhig. dadkana way soo wacyigelin horta waxaanu kaadhka qaata ka dhalashada iyo ka kalaba, laakiin kalku gawaadhina way u baahan yihiin goobo in la keeno way u baahan yihiin rasmiga laga hadlayo hal codsi waayo dayrtii iyo gugii iyo xagaagii iyo jiilaalkii midba meel baanu degnaa bis alrisaani halkan inaan fahmin waxa weeye ma joogo qofku goobtu ka qaatay aynu daad waxaan ogahay 2 kun oo qof ka codaynaysa haddii aad tiraahdo qofku goobtii buu joogaya waayo dad xidhan oo deegaan oo degan iskuuladoodii magaaladoodii jooga yihiin. duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse iyo gudoomiyaha gobolka Daadmadheedhe Axmed Maxamed Xaashi oo gebagabadii hadalka qaatay ayaa bulshada ku booriyay inay isdiiwaan geliyaan. dad xoolo eriyaan muwaadin kastoo reer Oodweyne waxaan ku boorinayaa in maalmaha la qaadanayo kaarka in runtii si hagarlaana loo qaato, 2 qodob awgoodna loo qaato tirada guud ee gobolka iyo degmada oo codkoodu bato iyo qof kastoo muwaadin oo maanta la kala garanayo qofkii kaarka qaata inaanu muwaadin reer Soomaaliland aanu runtii noqonayn. faa'iido ballaaran baa noogu jirtaa inaynu isdiiwaangelino. qofku ma aha inuu xaqiisa lumiyo, haddii aanu isdiiwaangelin waxna ma dooran karo, muwaadinimadiisana codkiisii uu lumiyey. muuse Salebaan Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne. intaasi waxaa ku dhan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan warkii telefishinka qaranka Soomaaliland oo idinka imanaya xarunta TV-ga ee magaalada Hargeysa. anigoo ah Munir Axmed Igaal ayaa warka idin la socodsiinayay. intaynu mid lamida ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.